fanaanka dayaxdal nurshe waxa uu noqday 2025 qofka dagaalka ugu faraha badan ku galay social media waqti xaadirka xitaa muuqaalkan aan duubayo weli waxa uu ku jiraa dagaal furunta ayuu taagan yahay haddaba dadka ay is hayaan saddex nooc oo kaliya ay u kala baxaan mana jiro nooc afraad si walba hada u soo raadisidne ma soo heli doontid saddexda qodob iyo waliba saddexda nooc ay u kala baxaan dadkan muuqaalka markaan kugu sheego adiga ayaa kala saari doono qofka qaldan isaga miyaa mise dadkaas waaye muuqaalka laag saar si sheer gareeye qodobka koobaad fanaankan waxa uu yahay marka ugu horeydo 2025 ka hor dayaxdal nurshe magaaladan muqdisho cid ay is hayeen dhammaan dadka caanka ah ee meediyaha nuuciisa kala duwan isticmaala ma aysan jirin dhammaantood dayaxdal nurshe wuxuu u ahaa king yacni qof ay aaminsan yihiin oo ay saaxiib la wada yihiin haddaba dagaalku intuu ka bilowdo wuxuu ka bilowday sida ogtiin fanaanka marwaan yar ah magaalada muqdisho markii uu ka soo dego uu keenay gabadhan Somaliland ka imaatay fanaanada ah waxaa bilaabatay in dayaxdal nurshe uu ku talagalay sidii showga gabadhaas ay rabto u baaji lahaa gabadhan sida ogtiin Somaliland ka imaatay dayaxdal nurshena hore ayaa Somaliland show looga baajiyay sida daraadeed waxa uu arkay in gabadhan iyana ay show ku qabsanay maadaama hees ogtiin ay qaaday sida daraadeed sidoo kale waxaa jirtay xurguf ka dhaxeeyda dayaxdal nurshe iyo waliba marwaan yar sanado ka hor hees ay isku qabsadeen wixiyo isbiirsadeed waxaa keentay in ugu dambeyn dayax ku guuleysto in showgi uu sadhicin sidaasna showgi ku baaqdo haddaba meeshii isla markii showgi baaqda kadib waxaa dagaalka soo galay fanaanka Ismaaciil Aarka Ismaaciil Aarka waxaa soo waday sida laga dareemi karayba ninka marwaan ah oo isku heeb yihiin muqdisho imaaday show rabe inuu qabto laga baajiyay fanaan kale oo muqdisho ku noolna adigii aad tahay isna xigtiin ninkan saaxiibka walaalkaana ma u kala kicisid sida daraadeed dayax oo saaxiibo ciisho milix ahaayeen oo sidoo sheegana fanka soo gacan qabtay ayuu ula dagaalay arinta darteed waxaa la soo kiciyay xitaa qadarkeeyo oo muddo la arkinba waa la soo kiciyo la kala walaal aan garab istaagnay ugu dambeyn showgii dhacay showgii sida ogeedeen oo ku soo dhamaaday markuu dhamaadana dagaalka xigay waa ogeedeen say my name iyo buuqi ku xigay waa ogeedeen abdheeda aheedeen inta ka bacdi marka fanaaniintaas ayaa dagaalka dayaxdal nurshe ugu bilowday dagaalka ugu horeeyay dayaxdal nurshe wajaho qaabkoos u ahay hal qodob waa iga heesaha fila qodobkaas waa halkaas idig qodobka labaad wuxuu yahay dadka caankaan ka hadla ani reer comment ma ka hadlay dadka meediyaha muuqaalada soo galiyay siyaabo kala duwan baa u soo galiyaan ee ninka dayax is hayaan dadka kale waxay ahaayeen qaar waxaa jireen iyana dayax saaxiib la ahaa laakiin fanaanka labadan fanaan ku reer ahaa sida daraadeed markii showga loo shiday fanaankan oo dayaxna is hayeen ayaa iyana waxay soo raaceen Ismaaciil Aarka si ay ugu la sii kala kiciyaan taa waxay dhashay ka bacdi maadaama ay dhanka ka soo jeesteen dayaxna uu arkay inay halkaa wixii ka soo jeestay isagu ay is hayaan inuu dhammaantood falowda kala noqdo blogna wada saaro unfollow markay ku dhacday dhammaantood dagaal ayay bilaabeen waana arkaysay qof walba waxa uu dhahayay dayax falowda ayuu igala laabtay qaara dheen blogna waa igu daray sida daraadeed dadkaas ay isxigaan fanaaniintaas dayaxdal nurshe waxay isku haysteen waxay ahayd inay fanaaniintaas xoogaa dhinacaas ay ku taageereen isku cid ahaayeen dabadeedna dayax sidaas falowda kala laabtay dagaalkooduna halkaa uu ka qarxay sidaas ay ayaguna isku haayaan laba qodob miyaysaa hal qodob oo saddexaad soo haray labadaas qoloba qola ahayn oo saddexaad jirto oo hadda dagaalkoodu kacsan yahay qoladaas waxaa waaye kuwa aan kuwan ku reer ahayn dhalinyaradan TikTok ama media kale isticmaashay iyo fanaaniintaas aan ku reer ahayn oo ka baxsan inta badanna meelo kale ka duwan ka soo jeedaan saaxiibadu waa isjiitaan raggaas waxaa jiitay rag aan lagu arkay in badan macnaha ayagoo isla shidanayaan maadaama rag asxaab la wadayahay dhalinyaradii ee fanaaniinta kale israaceen oo ogtiin horay anfalooda laga laabtay markii ayagana halkaa ka soo muuqdeen oo ay leenka soo galeen automatically dayaxdal nurshe anfalow waa u diyaar leenka wixii soo galay anfalow dhammaantood dhahay blogna waa iskugu daray dhammaantood marka ayagina hadda waxay soo bilaabeen dagaal iyo waliba sarbeebo kala duwan iyo qaabab kala duwan inay dayaxdal nurshe ku soo ataagaan haddaba saddexdaas qolo kaliya waaye saddexda qolo ee dayaxdal nurshe is hayaan qof saddexaad oo arintaa ka baxsan oo dayax is hayaan hadaa aragtid iikeen aniga iikeen markaas anaa ku sheega ama qaybta commentiga igu soo qor sababtoo ah maba jiraba saddexdaas nuucdadaan ahayn oo haatan dayaxdal nurshe is hayaan haddii is imaan doonin haddaba anigu hadafka muuqaalka u sameynay wuxuu ahaa dagaalka dayaxdal nurshe dadka ku wareersan inaan u bidhaamiyo waxa la isku haayo cidda qaldan marka ani adika idin dhiibaa
أو رير كومنت أديك إنين ديبا dayaxdal nuurshe miyaa qaldan mise dadkan kale ayaa qaldan qaybta commentiga ayaa inoo balna mid kalena ogaada dayaxdal nuurshe waa nin abdheeda oo meediyaha la socdo muuqaalkaygan waa hubaa inuu daawan doono uu arki doono maybe inuu ra'yigiisa asna ka dhiiban doono marka waana sababta uu qof walba ula socdo xaaladda meesha uu ka joogo sida daraadeed soo kala saara marka adiga dadkaas haysto ninka dayaxdal nuurshaha nin dhalinyaro ah oo miskiin ah oo aan dhib badnayn weeye oo aan dadka dulmin wadinka dhalinyarada dulmiga ka daaya maalmahan waxa u jeeday inka dhalinyarada iyo saa loo ceersanayo maalmahan bishii soo dhaafay bishii ka horeysay wadinka dhalinyarada xaaladiisana waa ogtihiin faraha ka qaada idinku ma xishootaan miya qofku maalin la waa loo dhigi karaa maalin kaste wadinka dhalinyarada anoo saaxiibaan nahay inta ka barteen in dhalinyarada oo aan dulmi badnayn oo aan cidna dulmin oo كلي صعد هوليس سكوتوي وفراك قاعد نكا ونكا دليرada isaga fogaado oo faraha ka qaada maxay hin dad baaba wano dadku waa caaqeen Soomaali way baqday ma xishooto dayaxdal nuurshe annabi ku soo aaday iska afka gali Soomaalidu saas xaq u leeyihiin dayaxdal nuurshe markuu lahaa dameer gaari waa faras runtiis bay ahayd dayaxdal nuurshe waxa allaalaya wixii saqajaamaha intii balwadu dilatay habrihii nolosha ka dhacay say shishad roqda ugu hayeen wixii iyo dhan maanta asagay hadal hayaan habarta kaliya oo riboosti dhahaysa oo nolosha ka dhacday midka kaliya life-ka inta ka soo jeexday maxay ta soo saaranaya war waxaan ku wax allaaliya wixii nolosha ka dhaco risiq maanac aha kulli dayaxdal nuurshe ku dhageeyeen dayaxdal nuurshe maxaa lagu haystaa dayaxdal nuurshe waxaa lagu haystaa maxaad nooga hormarta maxaad u furatay meel maxaad noloshaan u heshay maxaad heerkan u gaartay maxaad u qurux badan tahay maxaad u cod qurxoon tahay maxaad u nasiib badan tahay intaasay ku haystaan ilaahu iimaanka ha naga qaade ilaahu iimaanka ha naga qaade wiilka xagee la geeya war wiilka hal quraan saara naagaha kaliya oo waxa weeyay shida ugu lahaayeen oo waxa weey dayaxdal nuurshe ugu jireen fayl mid walba waxay rabtaa waxay leedahay naagtiisi waa dhimatay ha ku guursado kulli markuu yiraahdo naag balwad lama rabo mid walba intay gadaal u dhacday oo qaracantay video iska soo duubaysa markaas marka aragtay video lagu caynayeen riboosti bay leedahay dayaxdal nuurshe miyuu qaybsami karaa de ma qaybsami karo waxa kale oo ka daran kuwii kooleystayaasha ah oo ku facaha oo heerka markuu gaaray oo shaqaystay oo waxa weeye horta dukaanka loogama horeynba meesha moor la leeyahay dayaxdal nuurshe loogama horreyn dayaxdal nuurshe waxaan risiq maanaca maxaad ugu horfuratay maxaad meelahaas Kenya iyo uga furan weyd Kenya iyo maxay ta Dubai iyo meelahaas kale maxaad dukaanka uga furan waxa dhan wiilka lagu cunayaa waa shaqadiisa maxaad u shaqaysat iimaanka leedinka qaado orda shaqaysta ka fuqa wiilka yarka